madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne oo ku taariikhaysan 1 bisha 3 2021 ku go'aamiyay in xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland bixiso lacagta deebaajiga ee murashaxiinta haweenka iyo dadka la haybsooco waxaana u dhigneed wareegtada madaxweynuhu sidan ku socota wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ujeedo deebaajiga murashaxiinta ee haweenka iyo dadka la haybsooco mudane wasiir sida aad la socoto xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha xeer lambar 19/2020 qodobka 68 iyo qodobka 83 waxay ku waajibayaan murashaxiinta golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka inay bixiyaan lacag deebaaji ah kuna shubaan xafiiska cashuuraha bariga ee wasaaradda horumarinta maaliyadda haddaba si ay xukuumaddu u dhiirigeliso ka qaybgalka doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee haweenka iyo dadka la haybsooco waxaan go'aamiyay in xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland bixiso lacagta deebaajiga ah ee murashaxiinta haweenka iyo dadka la haybsooco sidaa daradeed waxaan ku wargelinayaa xisbiyada qaranka inay wasaaradda horumarinta maaliyadda u gudbiyaan faahfaahinta murashaxiinta kor ku xusan ee shuruudaha sharciga buuxiyay wasaaradda horumarinta maaliyadda waxa la farayaa inay bixiso lacagta sharcigu ku waajibiyay murashaxiinta kor ku xusan ee shuruudaha buuxiyay ay ku soo gudbiyeen guddoomiyeyaasha xisbiyada qaranka Allah mahadle waxaana war saxaafadeedkan ku saxeexnaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi